السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وصفية فارح باندي أو كنت تخصصتي علم نفسي. waxaan ka bartay jaamacadda University of East London waxaan waliba ku sii daray oo online ka qaatay Stonebridge University cognitive behavior therapy oo haddana aan ku sii daray NLP neuro linguistic programming oo aan ugu talagalay maadaama dadka ay ugu imaanayaan dhibaatooyin kala duwan anigoo waliba ah dhiirigeliye nololeed oo ah speaker dadka noocyada badan ay ugu yimaadaan yani waxa aniga servicekayga u caawiyo waxa kamid ah dadka ku dhibaataysan walwalka sida ogtihiin wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan waxa kaloo jira cabsida dadka cabsada dadka shakiya dadka negative oo ku soo laalaabta habeenaya maalin wixii ku soo dhacay caqabadii hore ee noloshooda la kulmeen waxaan kaloo caawiyaa waalidiinta si ay u la yeeshaan ilmahooda connection wanaagsan ama xiriir sida u taqaanaanba waxaan kaloo caawiyaa dadka businesska raba sida ogtihiin businesska wuxuu u baahan yahay khibrad wuxuu u baahan yahay xeelad so business ahaan dadka igu yimaada waxay ka helaan short courses waxay iga helaan long courses labadaba iyo waxaan kaloo dadka ka caawinaa kalsooni darrada iyo depression anxiety cabsida oo waliba sida u taqaanaan cabsida ay kala duwan tahay cabsida aan ka hadlayo waxa sida gaarka walwalka waa gaar waxaan kaloo dadka ka caawinaa especially kalsoonida ay ku yar yihiin markay noo yimaadaan servicekeena waxay aad iyo aad ugu qancaan yani inay naftoodii helaan markoodii horena aysan direction aysan lahayn xagga noloshooda marka waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada waana mahadsantihiin aad u mahadsantahay Safiyo wax badan waa ka faa'iiday because maxaa yeelay aniga ahaantayda targetyada wal maxmaan qoro jirin inaan macnaha sameeyo yool ama meel higsi ah hadda laakiin ma sha Allah sida aan u sameeyay higsiga oo yoolka aan sameeyay waxaan ogaaday waxa in iyo out ka mar walba in iyo out ogaatin waxa ku soo baxay resultigaaga so resultiga waxa noqonaysa in wax maamuli karo marka aad ugu mahadsan tahay talooyinkaas qariga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الصفية ما شاء الله nice to see you again الحمد لله ما أنتوا حقوقي ماضي إن نكون مهد عليو إلهي سبحانه وتعالى كسكو إن أديكم مهد عليو ما أنت from the day was مركا كبرت 2017 through the Facebook الحمد لله نولا شيء وحبطن أياك بدأ شيء iyo waxyaabo badan ayaa ka bedeshay laakiin aniga sida u dhaqmi jiray qof Soomaali ku soo kora ahay ku soo weynaaday alxamdulillah xoogaa asagoo jira anoo jiray in yar xoogaa kooban ayaan Soomaali ka imaaday waa guursaday hooyo ma lahayn wax walba ii sheegto caruuraan dhalay alxamdulillah aad iyo aad ayaa ugu farxay markaan ku bartay sababtoo ah caruurteeda sida ula dhaqmo sida hawsha guriga iyo wax walba kaliya uga qabanayo aad iyo aad ayay ugu noqotay wax aan soo koobi karin alxamdulillah aad waxaan aqbadnaa samirkaygu wuu yaraa dhaqanka ilmahana wuu iga qaldanaa markaas laakiin wuu ii saxsanaa sa aniga u maleynayo alxamdulillah hadda ilmahayga wax badan ayaan iska bedelnay xagga maxaa la yiraahdaa relationshipka aan leenahay timetable-keena waqtiyadeena sida yani waqti walba schedule aan u raacno 5 days school aadan after that guriga la imaadaa la wada sheekaystaa 10 minutes oo waxaan leenahay every day qof walba wixii soo sameysay iskuulka aniga shaqadeeda iyo nolosheeda wixii aan soo sameeyay waa wada cunteynaa anagoo hadlayno faraxsan qof walba alxamdulillah weekendiyada taamkeena alxamdulillah waqti dugsi la aadayo waqtiga kalena la leeyahay muxuu ahaaye tobdi swiiman alxamdulillah macal Safiya abaalkaaga ma gudi karo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha kuu gudo adigana miisaanka qiyaamo ilaaha kuu saaro tan kale waxaan jeclaan lahaa dadkeena Soomaalida dad badan ayaa jiraan oo waxyaabahan la dhaqanka iyo wax caruur sida loo dhaqmo ay ka maqan tahay anagana sida u dhaqmayna ay raajna la tahay laakiin aan ahayn waxaan jeclaan lahaa inay kula soo xiriiraan waxaan jeclaan lahaa inay maaragtay connect gareeyaan yani waxaan walaalahayga Soomaaliyeed iyo dadka kale ajnabiga adiga oo ku hadla laba luqadood waxa ugu baaqaya ama ku dhiirigelinaya inay kula soo xiriiraan ay ka faa'iideystaan
qof waxaa tahay ummadii muslimka iyo ummadii kale u bandhigay yani wixii aad soo baratay inay kula qaybsadaan marka walaalahay waxaa ugu baaqayaa inay kula soo xiriiraan anigan waxaan ku leeyahay thank you for everything jazakallahu khair. Hi, my name is Inas. It is vital for a parent and a child to have a strong relationship and a healthy bond. Mali Safiya has really helped my family get that strong relationship. We communicate, we talk about our problems. I strongly recommend families to come and visit Safiya to bond their relationship. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacayga waa Samira. Waxaa la soo xiriiray muddo ka hor macalin Safiyo waxyaabo badan ayay nolosheeda iga bedeshay alxamdulillah ilaah ayaa mahaddaas iska leh waxaan rajaynayaa dad badan oo Soomaaliyeed ah inay ka faa'iideystaan macalin Safiyo waa qof fiican waa ma sha Allah aniga wax badan ayaa iskaga bedelay idinkan waxaan jeclaan lahay inaad la soo xiriirtiin insha Allah. السلام عليكم magacayga waa Shukri waxaan wada shaqeynaa Safiya team Safiya ayaan kamid ahay Mastering Power Within Safiya marka hore waxaan ka daawan jiray Facebook live ayadoo ku jirto page kala dhaho my Soomaali community anigoo cabaar daawanaya kadib ayaan Safiya teamkeeda ku soo biiray waan wada shaqeynaa dad fara badan ayaa aragtaa caruurta dadka waaweyn marka ku soo dhawaada waxaan team Safiya waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mastering Power Within هذه أن فاين كبيحيو أنا جا before أنت أنا بران وحنا كمية هاي دتك فيسبوك وكلتي حن صفية بارح باند أو مركز تاع عشرة بدن كده جسجلي and then وحنا سوي جوين جرين عن هو ماد أوفيس كا أو كويا شافر بوش working clean ما شاء الله سي أن وقفة يديستو business كا وأنا جا أن ندام عن شقيو si aan uga helo fikrada iyo macluumaad mar walba oo wax baranaysid wax barashada weyn yaraa male cilmiga mar walba waa in la raadiyo oo laga dhamaado ma sha Allah wax badan ayaan ka faa'iiday oo ay kamid tahay businesska managementigiisa qaababka wax loo kala maamulayo sida ay ku xisaabtaada mar walba in ay outka wala soo lahayd ma sha Allah taala iyo inaan sidoo kale ka faa'iidinay barbaarinta ubadka qurxoon xanaaqa waxyaabo badan ay ma sha Allah u baahan tahay cudurro badan waxa jira dhakhtarka loo tago aan daawadiis dadka inta badan waxba laguma qaban kara laakiin u baahan si maskaxiina oo in lagu daaweeyo qofka maadaama dadka energy badan ay leeyihiin marka ku soo dhawaada Mastering Power Within soo join gareeya si aad wax badan u faa'iideysid ha ka cabsan inta aad guriga fadhiso barnaamijka u soo bax si aad wax badan u faa'iideysid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacayga waa Safiya Faarax Baande oo aan ku takhasustay cilmi nafsiga waxaan ka bartay wadanka aan ku noolahay UK London qaasad ahaan University of East London kadib markaan dhameeyay waxaan ku darsaday CBT Cognitive Behavior Therapy oo aan ugu talagalay in ay iga caawin doonto dadka aan maaragtay rabo in aan caawiyo kadib waan sii kordhiyay waxaan bartay NLP Neuro Linguistic Programming haddaba waxyaalaha aan xarunteeda ku caawiyo dadka ii yimaada waxay igu yimaadaan waxyaalo kala duwan ee kamid yihiin depression waxa kamid oo kala cabsida anxiety waxa kamid ah fears u taqaanaan waxa kamid ah walwalka qofka ibn aadanka walwala waxa kaloo kamid ah shakiga waxa kaloo kamid ah kalsooni darrada waxaa kaloo laygu yimaadaa familado kale inay connection ilmahooda isla sameeyaan waxaa kaloo laygu yimaadaa inuu qofka rabo inuu businesskiisa uu hor u wato oo laakiin khibrad fiican uusan u lahayn oo anigana aan u maaragtay u fidiyo martabad u ah in ay ka bartaan strategy oo businesskooda u kori lahaa waxaan kaloo caawinaa waxyaalaha dadka dhibaatooyinka kusoo wajaha ee kamid yihiin depression caqabado maaragtay noloshooda kusoo korortay waxaa kaloo kamid ah walwalka iyo waxaan kaloo dadka ka caawinaa shakiga oo ogtihiin inuu yahay waxyaalaha dilaaga qofka ibn aadanka dib u dhiga waxaa kaloo dadka noogu yimaadaan dadka aan direction ka lahayn aqoonin meesha u socdaan noloshooda oo isaga socda waxay arkaan taasoo aan u fidino dhanka businesska waxaan kaloo caawinaa kalsoonida dadka ay ka hooseyso oo aad dareemi kartid in kalsoonida qof walba uu lahaa markiisa hore laakiin again ay caqabado la kulmeen ay dib u dhigeen waxaan kaloo dadka ka caawinaa cabsida anxiety ee weliba dad badan jiraan inay qaataan daawo taasoo ay kala tahay mid yar iyo mid weyn daawo ay qaataan daawadaasna qaarkood aysan waxba ka tarin laakiin markay noo yimaadaan ay helaan anigoo weliba u isticmaalaya toolska
NLP neurolinguistic programming iyo CBT sababtoo waa waxa ugu fiican qofka ka caawiya xagga mar haddii la yiraahdo si qaas ahaan traumatic experience waxyaalaha maaragta dadka dhacdooyinka kusoo dhacay markay yaraayeen markay weynaadeen oo dib ugu soo laabato oo dhibaato ku keenta gacmo furan kusoo dhawaada waanad mahadsantihiin